السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي داوديان مeel kasta oo aad ku sugan tihiin waa mar kale iyo kanaalkeeni Siciid Xagaayo ustaadkii sharafta badnaa. Daawadayaal maanta waxaan fiidiyoogii hore waxaan sameynay dadka ayaan weydiinay su'aal number ayaad afar number qabsanaysaa number kamid ah ayaad qarinaysaa saddexda number ii sheegaysaa numberkaasaan sheegaya ayay ahayd fiidiyoogii kan ka horeeyay maantana waa sharaxaadii sirtii ayaynu waadix ka dhigaynaa clear ayaa laga dhigaa qof walbo sirta iyo khiyaanada meesha ku jirto ayaan ku barayaa insha Allah haddii Ilaahay idmo fiidiyoogan haddii aadan kii hore u daawan ma fahmi doontid marka fadlan Axmed Sadiiq saaxiibkii aan ka codsado daawo waa ka fiidiyooga kii hore marka kadib u soo noqo jawaabta ready واضح هران ku galina Soomaa dabcan wax la raajaa rag kuma sameey tirahdaa Soomaalidu wax raaga wax la raajaa rag kuma sameey dumarkana waa halkaas soo galayaan rag door kuma sameey waa tahay xisaab horeynu ka bilaabayna okay waxay ahayd 1243 ayaad qabsatay tusaale number qabso ee qofka leedahay wuxuu doono yuuna ku sheegin tusaale marka waa tusaaleey kan waa sharaxaadii sirta inuu sheegayna okay afar number u qabsaday si dherer ah isugu dar okay 1243 marka waa plus waxaan sameynaynaa sidii u kala weyn 4 3 uge 7 2 uge 9 hal uge 10 waa 10 marka inta la isku daray waa 10 okay 10 ka jar marka labada tire dambe inuu ka jarayna labadan dambe 10 ka jar sax waa qaabkii tii hore ahayd Soomaa okay saddex iska soo deji afar halka jar saddex labada soo deji labo halka soo deji marka waxaan dhahay marka ma ku soo baxday afar tiraha ka labaad qarso oo ha ii sheegin ana soo saaraya sidaas ay ahayd saddexdan ii sheeg haddaba sideen ku soo saaraya war heeda goorman ku lahaa hadaad xusuusatay fiidiyoogii hore xisaabta aan ku lahaa numberkan waa sixir war numberkan waa mucjiso numberkan la yaab ayuu leeyahay goorman ku lahaa xusuusan tahay numberkan xusuusan tahay numberkee ah number 9 numberka 9 waa mucjiso waa sixir waa la yaab waa miisaanka xisaabta dhan kan lagu fariisiyo waa isaga wax lagu soo saaro wax badan tirada isaga u ah xisaabaadka dhan 90 degree marka la leeyahay oo kale isha 90 degree marka la leeyahay 180 marka ay tahay oo kale waxaas oo dhan sagaalku ku fadhisaa 360ka globalka yani adduunka oo dhan yani globalka wuxuu ku fadhiyaa number 9 ku fadhiyaa tirada saacada 9 wax bad xisaabta 9 ku fadhisaa waad ogtahay fiidiyoo hore ugu sharaxan insha Allah kuwa kan wada keenin doona marka number 9 waxa leedahay waa mucjisada xisaabta waa mucjisada xisaabta as I believe anigu sidaan aaminsanahay could you brief us anagoo dhan insha Allah haddaba sideen ku soo saaray labada waxaan ku soo saaray ii sheeg baan ku leeyahay saddexda number okay waxaad i tiri hal saddex okay waxaan sameynayaa waxaan isku darayaa tiradii isku darayaa okay saddex lagu daray hal lagu sii daray 9 maxaa iiga dhiman laba oo kaliya markaasaan ku leeyahay okay hal maxay soo la adiga laba ku soo baxday tiro kale qof kale isi adiga 5 baa ku soo baxday adiga okay haddaba sidaas ayaan ku ogaaday waa tusaale kale aan ku siiyo oo number waaweyn halkaan aan ka dhigo haye waxaad siisaa 8 aye 7 9 6 oo kale okay 8 lagu daray 7 lagu daray 6 isku wada daray intaan 9 wada haystaa Soomaa 8 iyo 9 markaad hay 9 ka bilow 9 tirada u dhow ee ku soo xigta tirooyinka ayaan ku daw saarida isugu darsay yani ku waale okay 9 6 uge waa 15 Soomaa 15 7 uge waa 22 22 sideed uge soddon kan ka jar labada number ee u dambaysa ka jar 6 soo deji 9 3 ka jar 6 sideeda u soo jeedi 8 7 number kan la doonay inaad soo saarto waa ka maxaan sameynayaa
habkan iyo habkan tirooyinkaa kala badan soo maahan haddaba markay sidan tahay maxaa la samaynayaa okay 3 number baa lagu sii soo maaha 8 6 ugee 14 14 6 ugee 20 baad haysataa 20 marka maxaan samaynayaa waxaad samaynaysaa marka koowaad 9 maxaa ku ah tusaale ahaan fiiri maxaa 9 ii keenay 8 halkan ka soo qaad waa 5 bay noqon halkan markaad ka soo qaad halkan 9 ay noqoto soo maaha way isla baxday way isla baxday halkaas 9 way noo buuxdaa 9 way buuxdaa iska daa halkan maxaa kuugu haray waa 5 halkan maxaa ku haray 5 baa ku okay 6 iyo 5 isku dar waxa weeyaan waa 11 9 ka go waxa weeyaan waa 2 la maxaa ku soo haray 2 soo maaha 2 haysataa maxaa 9 kaaga dhiman haddaba waa 7 markaasaad qofka leedahay 7 ma haysataa waaw eeg haddaba sidii u kala fiican yihiin markan 9kan buuxiso ma markii ka badan tahayna qaabkaasaad isticmaalaysaa fahamta wala la waa la fahamsi fiican tusaale kale ugu dartana waa okay tusaale kale bal fiiriya waxyaalaha cajiib kale aan kuu sheegay tirada qoro tusaale ahaan waxaad qorataa 4 5 2 eber qoro waxaan ku dhirir isugu dar horta dhirirow iyo balaco horta maxaad adigu faa'iido leedahay maxaad faa'iido leedahay haddaa sidaa isugu darana waa sem okay waa sugen haddaa saa isugu maxay macnaheedu hadda tusaale ahaan fiir okay 4 5 2 0 okay isku wada dar waa imis ile 0 waa Kowiton. isaga ama ku dara bakare waa imisa 11 11 haddana saa isugu dar asku 11 waa 11 marka 11 laga jaray intaa labada gool ugu dambeeyay ka jiraysa marka okay ka jar waxa weeyaan waa 9 0 waa 5 okay waa 4 numberkaas doonaysa in soo saar soo ma 4 eber 5 buu qofku ku siiyay soo ma 9kan sideedu u qaadanaysaa iska badaa marka waxaa haysataa 4 maxaa kaaga dhiman 9 la yarxamaka allah yahdikum allah yuslih balak okay 4 maxaa 5 kaaga dhiman 4 maxaa 9 kaaga dhiman 5 wada taade 5 baa ka dhiman waa si fudud bay u soo baxday ba horta aad ma loo fahmay laakiin sababta ay leedahay aan ku leeyahay waxaad rabtaa inaad wax keento dee moogta caqligan raba inaad keento qofka inaad wareejisaa qofku dhahdo halkaas saa samee saa isugu dar qaacida waxaas oo dhan waa farsamo aad doonayso qofkaas inuu deeyo wallahi qofka waa qatar sidee ku ogaaday waxa okay another example 9ka mucjisadiisa fiiriya mar walba say ku soo baxayso labada waxaad doonto sheeg tirada aragti sheeg axmed laba tiri yeeri 76 laba tiri yeeri waxaad aragti sheeg ya waa 38 okay 38 okay anna waxaa iska dhahdaa 45 iska dhaba isku dar mucjisadan ay leedahay labadan isku dar 13 ya 13 labadan isku dar waxa weeye waa 11 labadan isku dar 9 waa 9 haddaba u fiirsa marka ka jar waa 3 6 wow ma fahmaysaa si wanaagsan 6 3 labada isku dar 9 way soo baxday okay 8 halka go 7 4 halka jar 3 halka jar waa 2 okay isu gee 9 okay isku dar waxa weeyaan kala godhade ha kaye waa 4 halkan ka soo qaad 15 minus 9 waxa weeyaan waa 10 9 ka go waa 4 ya صح ay halkan ka qaad 15 9 ka go soo ma ليه 10 ka go waa 6 waa 6 halkan maxaa ku haray صدق 3 واو waxa aragtay laba tiro isku ka dhig 3 ka dhig hey ha 3 tiran ka jira isku dar isku waa 6 hadaa rabto iigu 3 oo kale isku dar waa imis waa 6 soo bax 06 ka jar 27 labada shukii cajiib ustaadkii mar kasta 9ka caadi ma aha waxaad doontad ku keeni kartaa xisaabtaad rabto farsamada rabto ayaad ku keeni kartaa 3 tiro ka dhig 4 tiro ka dhig waxaa jirta iyadoo si kale la isku hoos dhigo 4 tiro iyo 4 tiro oo 9kan lagu isticmaalayo
laakiin dib baa loo dhigay leh insha allah ilaa waxaa la rabaa waa la iibiyaa la rabaa ma iibinayne يعني waxaa la wax dad iibo waxaan ka wada dadku wax loo sheegay ka soconaya macnaha muhiim marka xisaabtan qof kasta ku xujaysan kartaa laakiin marka hore fiidiyoga hore daawo waa kan waa sharaxaadii sida aad wax ku fahmi lahayd war le ma la wadaa saaxiib maxaa kaloo lahayaa haye axmed maxaa leedahay asxaabta waxaan leeyahay aniga daawadayaashuba aad baan u fajacsanahay lambarkaas sagaalka iyo mucjisadiisa in badan oo daawadayaasha ka mid way soo codsadeen axmed inuu samarada hore ha axmed uu iman doona insha Allah 2022 January February lama joognaa axmed waa ku maasatay saaxiib muuqaalka da adiga ahaan lahayn asxaab badan meeli lahayn marka qaar baan soo weydiiyay axmed oo arki doona insha Allah si kale inta ka horeysa oo salaamiya saaxiibkii waad maasay saaxiib fiidiyogan dad ka heshay like garee asxaabta kale la wadaag maxaan ku yiraahdaa wixii talay tusaale oo soo sii kor faalooyinka marti baan idin ka nahay insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.